حديث كان كوب طبنات عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. حديث كان وحالي رنايا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله كره لنقضيه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم زمن كيس وقت كيس كان وهو ننكاس اسمه مقعيس عبد الله يلا أورنجري وكان وهو ننكاس يلقب مثل لوغنا نيسو حمار يا لوغنا نيس جري نانيستيس وحا لوغو جري حمارا وكان وهو ننكاس يضحك متك قسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وكان النبي صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو قد جلده متقرعي ننكاسي في الشراب عبد دراديد متقرعي أيو يعني وحبو عبي وحياله مانك الدوري سيدي خمرض أوكلا مركز النبي عليه الصلاة والسلام وقرعي فأتي والله كيني به النبي صلى الله عليه وسلم يوم مال فأمر مركز أمري به ننكي فجلد مركز لقراعي يعني مالين بالله كان النبي عليه الصلاة والسلام نينكي أسيقو يعني وحصو عبي حيالها مانك الدوري سيدا خمرض أوكلا مركز النبي عليه الصلاة والسلام هو عمري إن لقراعه فقال رجل فقال وحوير مركز رجل نين أو من القوم قومك كمد أها اللهم العنه إلهي ونحرستاد كفوغي إلهي ونحرستاد كفوغي ما أكثر ألا بضنا ما يؤتى انت لكينا به أسيغا فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وحيري لا تلعنوه ورلعنة كداية او إلهي نحريستي سيالغا فوغين ننكان فوالله إلهي أن كل أرتيه ما علمت مانا أغانن إلا أنه يحب الله إنه جعل هاي الله سبحانه وتعالى مويه يو رسوله يا رسول كيسة اللعنة كداية مركا حديث كان وحديث عدو قيمة بضن waxaana laga faa'iideysanayaa xadiidkan qofka muslimka ah in aan lagu xadgudbin sababtoo qofka muslimka ah waa insaan waa bin aadan gif wuu ka dhici karaa khaladna wuu ka dhici karaa qofka macaasi xumaan wuu sameyn karaa qofka waxaa la doonaa markuu xumaan ama macaasi uu ku dhaco in la waaniyo wax loo sheego si aayar ah loo waaniyaa la doonaya laakiin in la caayo ama la aflagaadeeyo lama ogolo hadduu xad uu ku dhacayna xadkiisa ayaa lagu fulinaya hadday dil tahay waa la dilaya haddii garaacataan ay tahayna waa la garaacaya laakiin in la caayo in la aflagaadeeyo ama in naxariista rabbi subxaanahu wa tacaala laga fogay lama ogolo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu diiday ninkan marka wuxuu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam zamankiisa oo xilligiisa ayuu noolaa waxaana la oran jiray kaana ismuhu cabdullaahi ayaa la oran jiray waa nin saxaabi ah oo aada u qiimo badan wey naaneystiis waxaa la dhihi jiray ximaar يعني قفك نانيس يو مقع يوليه هاي مركا مقعيس عبد الله يلا أورن جري لكن نانيس تسي حمار يلا ديه جري وحو أحانين كاسي متك قسلي نبي عليه الصلاة والسلام نبي انتو إماضة أيو أشي كين جري أيو كقسلين جري نبي عليه الصلاة والسلام وحو أحانين دبي عدي سادو وناكسن آدو في عان دتك دنسو دبي أيو أحا نين كان أسيقو سيدان ونبي عليه الصلاة والسلام ولا شي كيسان أيو كقسلين ayuu khalad ku dhacay yani waxbuu cabay khamre iyo waxyaalaha maanka doori ayuu cabay markaasaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu garaacay haddana maalin kale ayaa loo keenay nabiga sala allahu calayhi wasalam asagoo wax soo cabay ama khamre ama waxyaalaha maanka dooriyo markaasaa nabiga sala allahu calayhi wasalam haddana uu amray in la garaaco markaasaa ninkii la garaacay nin oo qoomka ka mid ah wuxuu yidhi ilaahay oo ninkaa naxariisteeda ka fogey alla badana haddana intii la keenayo qofkan yani maanta waxbuu soo cabaya waa la garaacaya haddana beri wuu soo cabaya haddana waa la keenaya waa la garaacaya alla badana intii la keenayo qofkan ilaahay oo naxariisteeda ka fogey markaasaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi war naxariista ilaahay aa laga fogeynin qofka ka daaya sababta maxay tahay wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay aan ku dhaartee ma ogi qofkan ilaa inuu jecel yahay mooye allah subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa qofka asigoo allah subxaanahu wa tacaala uu jecel yahay iyo rasuulkiisa ayaa haddana khalad ka dhici kara macaasi ayuu sameyn karaa xumaan ayuu sameyn karaa waa qof insaan ah nafta ayaa ka tanbadanayso marka saas ay tahay qofka khalad iyo macaasi haddii uu ku dhaco micnaheeda maahan in naxariista rabbi subxaanahu wa tacaala laga fogeeyo marka wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam ka daaya marka waxaa laga qaadanaya qofka si walba xumaan iyo macaasi uu u sameeyo in qofka aan lagu xadgudbin naxariista rabbi subxaanahu wa tacaala aan laga fogeynin
hadduu khalad sameeyey waa la waaninayaa, wanaag iyo kheyr ayaa loo sheegayaa. hadduu xad yahayna xadka waa laga oofinayaa. laakiin qofka in la aflagaadeeyo oo dulmi loo geysto oo lagu xadgudbo lama ogolo.